kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada qaybtii 8aad ee sheekadii ma waxaan u dhintay jacaylkii nagaad waxaynu idinka raali gelinaynaa daawadayaal hakadkii ku yimid sheekada haddaba daawadayaal intaanu sheekada guda gelin bal aan marka hore hal iyo laba ka soo qaato sidii caadiga ahayd qaar ka mid ah daawadayaasheena iyo fikradihii ay ka dhiibteen qaybtii hore ee sheekada inagoo markasta idinkaga mahad celinayna sidaad inoola socotaan iyo afkaaraha saliimka ah ee aad isdhaafsanaysaan waynu u riyaaqna runtii wayna ina farxad gelinaysaa markaynu aragno dhalinyaro si wacan isku dhaafsanaya aragtidooda waana ujeedadii aynu u hirgelinay aayaha nolosha TV Moha Busuri ayaa yiri aayaha nolosha TV qisadani waa qiso itaabatay markaan daawaday alla jacaylku xanuun badana Najma iyaduna waxay leedahay aayaha nolosha TV saacad ka hor ayaan ku soo biiray aad baana uga helay qisada nagaad aad bay u macaan tahay Ali Baashi wuxuu leeyahay aayaha nolosha TV waan idin salaaman dhammaan asxaabta ku xidhan waan idinku cusbahay waana wada dhageystay sheekada bilow ilaa dhamaad Cabdixakiin Jaamac ayaa isna wuxuu yiri waaw waa sheeko soo jiidatay taankis aayaha nolosha TV Saynab Social oo soo gabagabaysana waxay leedahay waaw wallahi aad baan u xiiseeyaa sheekadan wax badanna waan sugayay walaal inoo soo dhaqso waadna mahadsan tahay adinka ayaa mudan asxaabta dhamaantiin haddaba daawadayaal qaybtii 7aad ee sheekadu waxay inoo maraysay Cabdullaahi oo kadib isku dayo badan oo uu ku doonayay inuu nagaad ku hanto ku fashilmay lana kulmay dhowr diidmo oo isxiga markaanse la yimid qorshe cusub oo uu arkayay inuu xal u noqon karo jacaylkan uu ku dhibtooday waa Cabdullaahi wuxuu diyaariyay goobtii uu qorshihiisa ku fulin lahaa wuxuu isweydiiyay nagaad ma qaadan doontaa qaladkeeda maxaase dhici doona haddaad ku kacdo falkan war Saudiga habsaamay ayuu isyiri degdeg buu u sara kacay oo xadhig uu halkan meel ah sii dhigtay soo qaatay kursi isaguna diyaar u ahaa ayuu la soo booday oo intuu u baxay meel saqafka bartankiisa ku beegan oo leedka guriga ku xidhnaa xadhigii si fiican ugu guntay hoos buu xoog ugu soo jiiday si uu u hubsado in aanu go'ayn markaasuu dhiftin fiican oo si hawl yar u roori karta u sameeyay si wanaagsan markuu isugu salaxay kursigii iyo xadhigii ayuu ku fakeray cidda uu dardaarankiisa ugu dambeeya dhegta u saari karo waa tabintii shaacir haddaba daawadayaal si aad uga bogataan sheekooyin iyo qisooyin dhab ah oo quseeya waayaha nolosha ku xirnaaw oo subscribe saar page-kan cusub ee aayaha nolosha TV inala wadaag oo inoo soo dir maalmaha murugada iyo mahadada kugu beeray ee aan ka go'in xasuustaada adigoo fariin inoo soo diraya Filsan buu isyiri maya ha kaga nixin ayaa gashay haddana nagaad ma naagta cadaabtii kuu quudhay oo maxaad iyada dardaarankaaga uga sheegi maxaadse ku odhan ayaa gashay ka nixi in ay naf goynayso u sheeg ayuu ku tashaday oo intuu teleefankiisii gacanta oo halkan yaala soo qaatay ayuu fariin qoraal ah u diray waxaana ka mid ahaa weedhihii uu u qoray nagaad wax kasta oo aan kugu sameeyay dhib kasta oo aan kuu geystay xanuun kasta oo aan ku dareensiiyay waan ka raali gelinayaa galabta ayaana kuugu dambaysa dhib dambe oo aan kuula imaado iminkana nabadgelyo meeshii la ii qoray ayaan naftaan u caraabinayaa intuu u qoray ayuu teleefankii dhulka ku tuuray oo intuu xadhigii qoorta surtay oo isku giijiyay kursigii iska laaday dam si wax u dhaceen iyo cid qaabishay midna ma fahmin nasiib wanaag Filsan oo uu mar wacay intuu diyaarinayay qorshaha dhowr marna soo wacday teleefankiisa oo haleeli weysay kadibna qayla dhaandirsatay intay ka shakisay ayaa ku soo jabisay albaabkii kana soo gaartay isaga oo ay xaaladdu ku xun tahay isaga oo dawaqsan jahwareerna ku maran yahay oo garan la meesha uu joogo ayuu madaxa gees u yara duway oo waxaasi waa maxay ayuu isyiri wuxuu isha ku dhuftay kursigii uu ku taagnaa oo halkaas meel ah sii rogman wuxuu ku soo jeestay dhankii Filsan iyo ninkeeda oo iyagu ka soo haray dadkii kale gargaar degdeg ahna u fidiyay
maalinta filsan aad ayay uga xumaatay wixii dhacay caro iyo canaan ayayna kala dul dhacday Cabdullaahi gartay in meeshu gurigiisii tahay gartay inuu nool yahay oo uusan dhiman intuu dhugtay ayuu madaxa u ruxay hadaladii filsan sidii qof qaatay filsan marna kama filayn Cabdullaahi inuu falkan wuxuushnimada ah ku kacayo halkii ayayna kaga dhaqaaqeen iyagoo xanaaqsan Cabdullaahi xadhigii uu isku daldali rabay oo dhinaciisa yaalay ayuu kun yar u eegay dirqi ayuuna u kacay oo intuu salaankii jaranjarada cuskada dhankii suuliga u kacay wuxuu dareemay madax wareer xoog ah dhiig dhafoorkiisa ku yaalay ayuu arkay cabaar intuu dhiigii iska masaxay oo isa soo toostoosiyay ayuu dhinacii madbaqa ku soo noqday oo koob shaah ah oo kala samaystay wuxuu soo qaatay teleefoonkiisii oo halkaan meel ah galaangalanaya fariin nagaad ka timid ayaa ka dhex muuqata degdeg buu u furay faan weyna ayaa ku qorneyd oo uu ka akhriyay waana jawaabta fariin uu u diray ka hor intuusan ku kicin falkan oo uu doonayay nagaad inuu ku dareensiiyo in aawadeed ay nafi u go'ayso mar kali ah ayaa Cabdullaahi dhiigii ku jiray inta laga saaray mid cusub oo diiran ka dhiig kulul ka xin badan lagu shubay shaaha horta ka saar ayuu isyiri fiijaanka ama koobka sidii qof 50 sanadood oo manaa ayuu daclada qabsaday oo isaga oo qiiqaaya ka laacay dhidid baa kor iyo kal shax ka soo yidhi taladii nacasnimo ee uu 5 minute ka hor ku dhaqaaqay ayuu soo gocday geed doqon ah oo laakiin cawo iyo ayaan badan inuu yahay buu isku qiray isaga oo isku qoslaya doqonnimadiisana la yaaban isla markaana Ilaahay uga mahadnaqaya fursad kale oo uu nagaad uga samray inuu siiyay ayuu dhankii qolka fadhiga u kacay telefishin qolka yaalay ayuu shiday oo war soconaya iska daawaday dabaylo baan ayaa koonfurta Aasiya baabah ka dhigay oo kumanaan qof ku dilay nin qorisita ayaa jaamacad Mareykan ah 9 arday oo aan waxba galabsan ku kaga jaray Iiraanna waxa lagu daldalay gabar yar oo 16 jir ah wadan Afrika ah oo magaciisa dhaafayna waxa macluul ugu dhintay 25,000 warbixinadaasina waxay ka mid ahaayeen warar ka baxaya TV-ga uu daawanaya Cabdullaahi dunidan show ninka ugu cawo iyo ayaan badan waa adiga ayuu isdareensiiyay isaga oo nin kale ah ayuuna waayihii maalinta soo maray ka dhex baxay hadaba maxaa xiga wuxuu waa jacayl sida waxya jiirka wanahay beerkiyo halbula iswaraabshan u wadaagi jacayl markuu kaaga waraabshay u wadaacabtaabshay ina kaaga wareego halka kaaga dhaqaaqo marka kaaga waraabshay u wadaacabtaabshay ina kaaga wareego halka kaaga dhaqaaqo inaga isku wanayne maxaad iiga wareegtay 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 ma waxaan u dhintay jacaylkii nagaad waa sheeko jacayl oo qalbigaaga dhaqaajinaysa waa tabintii nuur shariif shaacir waxaana qalinka u qaatay abwaan Cabdullaahi Cawad haddaba si aad uga bogato waayihii jacayl ee nagaad iyo dibadahan uu caaladku ka heshay subscribe sar channelkeena aayaha nolosha TV lana soco habeen kasta oo axad ah qayb kamid ah sheekada